kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada shabakada codka Tolmoon. Sheekadii gabadhii dishay carruurteeda waxa ay inoo maraysay 2 usbuuc kadib markii ay kooma dheer ka soo baxday inanteedii weyneed ee Christy. Markii ay boolisku arkeen inay hadli kartana ay weydiiyeen yaa xabadda idinku dhuftay, ayna ku jawaabtay jawaab shoog abuurtay oo ahayd hooya ayaa xabadda nagu dhufatay. Iminkii haatanna ku soo dhowaada qaybta 3aad ee sheekada. ma uusan hadhin wax dambe oo laga sii shakiya, waxaana boolisku isla markiiba ay qabteen Diane oo lagu eedeeyay dil iyo isku day dil. waxaana ay boolisku sidoo kale meel isugu keeneen dhammaan cadaymihii muujinayay kiiska ay gashay Diane si loogu maxkamadeeyo. arrintaasi waxay keentay in la raadiyo wax ku saabsan noloshii hore ee Diane, taasoo u muuqatay nolol adag. Diane waxay ku dhalatay Arizona sanadkii 1955, waxaana ay ka dhalatay qoys diimeed. waxa ay sheegtay in aabaheed ranteedii qashqashaaday, inkastoo aanay jirin caddayn midda iyada ah muujinaysa. waxay ahayd qof aad u caqli sarreeya balse daciif ah marka dhan laga eego. iskuulka marka ay joogto waxaa loo eegi jiray si gaar ah, sababtuna waxay ahayd dharka ay xidhan jirtay ay waalidkeed ku qasbi jireen oo dhardiimeed ah, waana lagu qosti jiray marmarka qaar. markii ay dhammaysay dugsiga dhexe waxa aabaheed uu qoray college diini ah oo ka fog xakamaynta waalidkeed, waxaana ay mar qura ka baxday xayndaabkii xakamaynta waalidka, waxayna samaysay wax kasta oo damaceeda ah. sanad markii ay ka soo maqnayd gurigooda, ugu dambeynna waxaa laga soo eriyey kollejka sababa ah dhaqan xumo iyo inay xidhiidh la samaysay wiilal badan, waxaanay dib ugu soo noqotay gurigooda iyadoo sidii hore ka bedelan. sanadkii 1973 Diane waxa ay ka carartay guriga qoyskeeda si ay isu guursadaan Stevie Downes oo ah gacaliyaheedii dugsiga dhexe. inkasta oo guurkoodu salka ku hayay jacayl, haddana dhibaatooyin iyo khilaafaad ayaa si dhaqsale u horseeday inay noloshooda khiyaameeyaan. waxaana ay Diane lahayd markaa 2 carruur ah. Diane waxa ay ku eedaysay Stevie guuldarrada guurkooda, balse isagu waxa uu ku andacoonayay inay iyadu jeceshahay in ay rag kale xidhiidh la samayso, waxayna khiyaamaysay wax ka badan hal mar ilaa ay wiilkeeda u yeedhay Dani ay u dhashay nin kale, balse uu cafiyey oo uu wiilka isagu isugu magac daray. sanadkii 1982 waxaa isbeddel ku yimid nolosha Diane maadaama ay shaqo ka heshay adeega boostada. halkaasna waxa ay ku baratay nin xaasle ah oo la yidhaahdo Robert Knickerbocker. isbarasho waqti ah kadib waxa arrintoodii u biyashubatay xidhiidh jacayl. waqtigaa isaga ah bilo yar kadib waxay Diane ka heshay warqadeeda furniinka ninkeedii Stevie, waxaana ay ku cadaadisay Robert inuu furo xaaskiisa si uu iyada u guursado, balse Robert muu ahayn mid danayn saasa u haya xidhiidhka Diane, waana ay la ahaan weyday inuu xaaskiisa furo. waxaana uu si cad ugu sheegay Diane inaysan macquul ahayn inuu guursado gabadh wadata 3 carruur ah. mahadsanid daawada. qaybtii 3aad ee sheekaduna halka ha inoo joogto. waa inoo iyo qaybta 3aad haddii alla idmo.